Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ku soo dhawaada janalka Baris Media. Muuse Suudiye Luxu oo ka mid ah xubnaha aqalka sare ayaa waxa uu ka hadlay xuquuqaha asaga oo sheegay in la kala mudan yahay xuquuqaha. aniga saaxiibkay hadalkiisa waana u sacbiyay waana ila fiicnay laakiin hadalka waa isfurfuray meelo badan oo galay baasaboor oo galay shaqooyin oo galay waxa uu galay mataqaanaa xaquuqda waxa maqan xaquuqdii dad badan oo wakiilka nahatiisa ha maqan waxa kamid ah niman naga shaqo badan dalkana ku soo noogay howlgabna laga wada dhigay ama noqday oo janana kornayla oo gaashaan la sareeyaala gaashaan la dhaxayaala gaashaan la yaala kasii hoos askar qadsan oo tiro badan reerkoodina ka maqan guryahoodii joogin howd ku jiryaala anna sida loo daneeya ay iska yar tahay xaquuq ay leeyihiin oo xaquuqa ciidamana ayan jirin anigoonan hadda guubaabihaynin oo oon dhehaynin xaquuq heli maysiin xaquuqdiinina ma haysatiin aan dhehayn oo shaqadooda ku dhiirigelihayo kuwaasaa wax walba mudan lacagaha meelaha lagu kala dirdiray mudan yihiin nimanka xildhibaanada ah waxay mas-uul ka yihiin dalka wixii madax ka ah waana lees wada heystaa waxaa leesu wada heystaa annaga shacbigaana heysto ayagaana soo doortay ayagaan xaquuqdoodii inaan u doodnay tahay xaq sharciyo badan oo yaal oo na sugayo waa jiraan qaarkoodna dood badan ay yeela doonaan oo qaar dowlad goboleeda ka dhaxeeyo la iskuna wada khilaafsan yahaa soo socda lana raba in ciyowba hore gacanta loogu dhifto laakiin hadda kanaan joognaa shaqaalaha dowladda ayagana sidoo kale waay qoftii wax yar qaadato waardiye yarna leh baabuuri ku socotana leh iyadu waa qof ladan waa qof caymato xaquuqda maqan waa badan tahay tan waxaan qabaa in ama lagu daro ama laga hormariyo xaquuqda ciidamada midla shaqaalaha retaayarka oo ay u qaylahayaan xildhibaanada ama senataradana waxaa ka mudan jananada ayagoon wax badan qaadihiin guryahooda ku qombabay oon mudnaan haysan oon tixgelin haysan oo ku rafaadsan oo wada jiran oon baasaboorro qabin oo waxa saanadahoy leeyihiin haba yaraatee aan qabin shaqaala la mid ah na way jiraan aniga dood badanaan maqlay haweenku waa doodayaan xaquuqaa ka maqan dhalinyaro waa doodii xaquuqaa ka maqan waa la xisaabtami doonaa haweenka xaquuqda ka maqan
haweenku waa badan yahay aniga hooyaday waa noosha aabahayna waa nooli gurigooda soo ma dhaafaan xaquuq ka maqalna ma jirto maamooyinka ay nimankii iskhilaafeen oo nimo badan ay iskhilaafeen xaquuqaa ka maqan ilmaha aan adoogood abadkood aragna xaquuqaa ka maqan laakiin aanu ku ilmahayna xaquuq kama maqna waa nugu kalsoon yihiin naagahaynuna waa nugu kalsoon yihiin raadiyahaan wax badan ka maqlay inaan waqti kale la sugo waa jeclaay shaqadu waa badan tahay hal lees xakameeyo wixii adoogyaa qabaa la leeyahay ilmahaan oda lahayn afkoodu waa dheerihi waana dhihi karaan raadiyaasha waa ku jiraan ilmaan odaya lahayn iyo telefisoonayaasha oon adoogood arag kuwaasay raadiyaan had iyo goor asay yidhaahiin haye xaquuq hebelaa maqan shay hebelaa maqan markii adoogiisa ebidkiis ma arki kii oda leh waa ka xishoodaa waxaan leeyahay waxa si fiican in looga baaraan dugo wax waa la mudan yahay meesha wax mudan oo hoosa laga soo bilaabo haddaba haddii aad ku cusub tahay channelka Baris Media fadlan subscribe saar gambaleelkana taabo mahadsanid